waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada caasimadda Hargeysa oo runtii ah ciidamo nafurayaal ah oo shacabkooda naftooda iyo maalkooda iyo xoogooda iyo mustaqbalkooda u huray runtii marka la eego nolosha qofka shacabka ah aad bay u adag tahay nin dhalinyaro ah oo maanta xooggiisii ku jira oo qof kale nafta u huraya ilaa marka laga reebo ciidanka dabdamiska oo meel kasta qof shacaba hantidiisa iyo naftiisa ku badbaadinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa mahadsantiin mahadnaqa ka bacdi saaka waxa idila jooga komishanka xakamaynta AIDS-ka komishanku markiis hore wuxuu taagan yahay saddex tiir oo waaweyn tiirka koobaad waa inuu la yimaado ama inuu leeyahay siyaasadda xanuunka HIV AIDS-ka ee heer qaran waa tiirka labaad oo ah daawada iyo daryeelka dadka xanuunka la nool ee Soomaaliland ku nool iyo tiirka saddexaad oo ah wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka HIV AIDS-ka saaka waxaan ula joognaa tiimka wacyigelinta komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka fariin baanu idin sidnaa caafimaad taasi oo ah noqotay lagama maarmaan in la idin soo gaarsiiyo maadaama aad tihiin naftooda hurayaal u huray shacabkooda iyo shacabkooda naftooda u huray inaanu fariinta caafimaadka idin soo gaarsiinay waajibaadka qarana ee annagana mas'uuliyaddeeda ah fariinta iyadu daaran tahay maadaama aad dhalinyaro tihiin maadaama aad xooggii waddanka tihiin maadaama aad mustaqbalkii dalka tihiin muhiim waxa noqotay fariinta caafimaad inaan idin soo gaarsiino oo aad samaysaan guurka hortiis baadhistu inay badbaado tahay oo intaydinaan guursan haddii alla ku roon yahay hore isu soo baadhaan